السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعوة قيمه بدن كسر دواء باكتيج maanta mowduuceena waxaan uga hadli doonaa sida loo isticmaalo Creator Studio asxaab badan oo ku xiran kanaalka Backtage oo inaga soo codsatay Creator Studio qaabka loo isticmaalo insha Allah binaal karim. maanta muuqaalkeena waxaan isla fiirin doonaa cashir tutorialkaas Creative Studio insha Allah intaan muuqaalkan guda galin fadlan haddii channelkeena ka daawanayso YouTube-ka subscribe inoo saar sidaas lamid ah haddii aad ka daawanayso page-keena inuu follow garay muuqaalka la garay asxaabtadana la sii wadaag insha Allah wixii oo dheeraad ah ama waxa jecesha in aan ka soo hadno dhanka faalada inagula soo wadaag yaan hadalku ugu daal muuqaalka faahfaahsan isla bilaabano oo wareen waxaad tagi doontaa application-kaaga Play Store application-kaaga Play Store markaad tagtay qaybta searching ayaa waxaa ku qori doontaa Creator Studio markaad ku qortid habkaas aniga haduu ii degsan yahay open ayaan dhihi doonaa open markaad dhaho application-kan sidan ayuu soo furmi doonaa kadibna haduu Facebook-gaaga ku kacsan yahay wuxuu ku dhahayaa continue as Facebook-gi markaas aad sameysanaysid ayaad ku xiran doontaa ama wuxuu ku soo qaban doonaa username iyo maaragtay password ku soo qaban doonaa si toos ah u gelin doontaa si toos markaa u gelisid option-kan ayuu ku soo qaban doonaa option-kan oo ah waxa uu YouTube waxa Creator Studio wuxuu ku ogolaanayaa inaad ku aragtid different pages you manage ina maaragtay pages kala duwan inaad ku manage garaysid hadana choosing inaad ku sameeyo one to start ina hal mid ka aad ka dooratid you can switch page later by tapping the page photo maaragtay intaas oo page hal mid ka dooranaysa insha Allah dhamaantoodna isla sidaas ayaa u isticmaali doontaa pageska marka sidan ugu dooratid Facebook Studio and Creator Studio qaabkan ay u shaqeyn doonaa qaabkan markuu sidan u soo shaqeeyo qaybtan wuxuu ku tusinayaa recent post hadii aad postiyada u dambeeyay aad soo dhigtay ayuu halkan kugu tusin doonaa qaybtan kale oo ay ku qoran tahay publish ama postiyada markaas aad soo dhigtay ama kuwii u dambeeyay kuwii hore meesha kala socon lahayd halkan waaye halkan kala socon kartaa kadibna waxa iska jawaala jiro wax markaas muddo kadib aad soo gelin doonto insha Allah muuqaalkan inuu ku soo gaaraan rajeenaya aad xilligan uu ku soo dhacay marka xilligan casharka aan sameynayo marka qaybtaas draftna qaybtan waxa waaye meesha markaas aad muuqaalkii iyo wixii aad dhiganaysid draftahan inta ugu xareey lahayd qaybtan markaas la imaano qaybtan inside this waaye waxaad kala socon doontaa haduu la yiraahdo interview markaas aad heshay sidoo kale waxaad kala socon kartaa second views adii dhaqdhaqaaqa Facebook-gaaga waa qaybtan kalena waxaad kala socon doontaa comments-ka iyo messages-ka qofka markaas kula soo hadlo ama saaxiibadaada qiimo badan kula soo hadlaan messenger-ka ama qaybta Facebook-ga halkan ayaa kala socon kartaa comments hadii la lahone qaybtan waxa ku soo qaban doonaa wixii comment u dambeeyay oo aadan furin qaybtan waa notification waaye waa wixii markaas adiga aad dhigtay ama muddo ku xir ama post markaas aad dhigtay iyo sidoo kale wixii maaragtay falcelin laga sameeyay page-ka laga soo siiyay amaan ayaa kugu soo dhici doona insha Allah marka waxaan jeclaystay maanta inaan kula wadaago muuqaalkaas qaybtan aan ka iloobin qaybta sare waa post waaye post qaybtaas ku qoran tahay waxa ku jirto new post waaye Backtage soo dhigi doonta reelska videoga photos sidoo kale live-ka inaad ka gashid iyo text inaad qoraal aad soo post gareysid hadii aad hadda aan dhahno text daan dhahno wuxuu tusinayaa inaan post gareyn doono text yana qori doona kadibna waxaan leenahay assalaamu calaykum amalle kadib next ayaa dhigi doonta wuxuu ku dhahayaa sidan ayuu u soo qormi doonaa publish garay ana hadda inaan publish garay ma rabo marka sidaas ayaa leedahay iska jawaalkiisa iyo wixiisna halkaas ayaa ka daawan doontaa insha Allah binaal karim maanta muuqaalka waxaan jeclaystay in halkan kula wadaago daawadaha qiimo badan waxa idinka tagi doonaa intaan kulmi doono muuqaal aynkan oo kala ay idinkii wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh muuqaalkan muuqaalka xiga bye bye.